cashirkan waxaan ku baranaynaa sida loo factor gareeyo trinomialska nooca u eg ax square plus bx plus c ama nooca ay ka horeyso x squared ay ka horeyso lambar aan ahayn lambar hal. tusaalaha meesha aga jeedid wuxuu leeyahay 4x square. marka x squared waxaa ka horeeya lambar aan ahayn lambar hal. marka waxaan ku baranaynaa cashirkan sida loo factor gareeyo trinomialka x squaretiisa ay ka horeyso lambar aan ahayn lambar hal. marka hadda tusaalahan baan ku bilaabaynaa. tusaalahan wuxuu leeyahay 4x square laga jaray 8x laga jaray 5x. marka si aan u factor gareyno marka ugu horeysa waxaad suubinaysaa negative 5 iyo 4 baad isku dhufanaysaa. algebra haddii aad aragtid lambar ay ka horeyso calaamada ka jarta ah taa micnaheedu waxa weeye lambarkaas waa negative number. marka lambar 5 waxa ka horeysa calaamada ka jar ahayd marka lambar 5 waa negative 5. taa waa inaad ogaatid mar walba. marka hadda sida loo factor gareeyo trinomialkan waxa weeye waxaa la subiyaa negative 5 baa waxaa lagu dhuftaa 4. marka saas kugu dhuftid hadda negative 5 baan waxaan ku dhufanaynaa 4. muxuu noqonayaa negative 20. markuu negative 20 noqdo baa waxaa la subiyaa negative 20 baa waxaa la soo raadiyaa marka laba lambar oo markii la isku dhufto noqda negative 20 markii la isku darana noqda negative 8 ayaan soo raadinaynaa si aan u factor gareyno. marka isku dhufashadii iyo isku daristoodii labadaas lambar. marka labada lambar baan raadinaynaa oo markii la isku dhufto waxaan raadinaynaa laba lambar oo markii la isku dhufto noqda negative 20 markii la isku darana noqda negative 8. marka laba lambar oo markii la isku dhufto noqda negative 20 waa 1 iyo negative 20. waxay kaloo yihiin negative 1 iyo 20. waxay kaloo yihiin 2 iyo 10. waxay kaloo yihiin waxa ka wada negative 2. waxay kaloo yihiin 2 iyo negative 10. waxay kaloo yihiin 5 iyo negative 4. waxay kaloo yihiin negative 5 iyo 4. haddii aadan aqoon sidaasaan loo subiyo waxaad daawataa video kale oo la yiraahdo hordhaca factoring trinomials taa waxaad ku baranaysaa videogaas sida loo soo helo lambarada noqda laba lambar oo markii la isku dhufto noqda lambar. marka hadda halkan waxaan ku taxnay laba lambarada dhan laba lambar oo markii la isku dhufto noqda negative 20 ayaan meeshan ku taxnay. Soomaaliyeed marka inta lambar oo markii la isku dhufto noqda negative 20 waa intaan. marka waxaan subinaynaa waan isku dardaraynaa negative 1 waxaad ku dartaa negative 20. negative 1 lagu daro negative 20 waa negative 19. negative 1 waxaad ku dartaa 20 wuxuu noqonayaa positive 19. negative 2 ku dar 10 waa 8. negative 2 waxaan ka wadaa lambar 2 ku dar negative 10 waa negative 8. 5 waxaad ku dartaa negative 4 waa 1 positive 1. negative 5 waxaad ku dartaa 4 waa negative 1. marka hadda lambarkan doonayno waa lambarkan labadan lambar weeye. labadan lambar laba markii lagu dhufto negative 10 laba markii lagu dhufto negative 10 waxay noqdaan negative 20. laba markii lagu darana negative 10 markii laba lagu daro wuxuu noqdaa negative 8. marka waa labada lambar aan raadinaynay. marka waxaan suubsanaynaa labadan baan qaadaynaa labadan lambar oo kala ah 2 iyo negative 10 baan qaadaynaa waxaan ku bedelaynaa negative 8x ayaan ku bedelaynaa si aan u factor gareyno. marka
trinomial kan wuxuu ahaa negative 8x laga jaray 5 ayuu ahaa soo maaha marka hadda waxaan yeelaynaa labadan number oo markii la isku dhufto noqda negative 20 markii la isku darana noqda negative 8x baan qaadaynaa waxaan ku bedelaynaa negative 8x baan ku bedelaynaa marka waxaan qoranaynaa negative 4x square and kan muxuu ahaa positive 2 buu ahaa soo maaha marka positive 2 maadaama uu yahay plus 2 baa u qoranaysaa 2x waa raacinaysaa sababtoo ah negative 8x baan ku bedelnay haddana kan kalena wuxuu ahaa negative 10 laga jaray marka negative 10 baa qoranaysaa haddana x baa ku darsanaysaa sababtoo ah 8x baan ku bedelnay haddana lambarkii oo dhankan joogay oo ahaa negative 5 baad ku darsanaysaa marka hadda halkan waxaa suubinay waxaa weeye labadan lambar 2 iyo negative 10 oo markii la isku dhufto noqda negative 20 markii la isku darana oo noqda negative 8 baan intaan qaadnay baan waxaan ku bedelnay negative 8 baan ku bedelnay marka hadda saan markay tahay baan waxaan suubinaynaa factoring by grouping ayaan suubinaynaa group ahaan baan u factor gareynaynaa haddaydan aqoon factoring by grouping waxaa taata videoga kale marka kan waxaa gelinaynaa group baan ka dhigaynaa lagu daray 2x waa group baan ka dhigaynaa midkaana group baan ka dhigaynaa group 10x minus 5 10x si fiican oo qoran 10x laga jaray 5 saas buu ahaa marka saas u group garaysid baa waxaa la suubiyaa group walba goonidiisa ayaa loo factor gareeyaa marka waxaa la suubiyaa lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo baa la soo helaa hadda waa maxay lambarka ama greatest common factorka waa maxay greatest common factorka u dhaxeeya waa maxay lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo 4x square iyo 2x lambarka ugu weyn oo 4 loo qaybin karo 2na loo qaybin karo waa 2 marka 2 la dhigtaa xarafyada marka kan wuxuu leeyahay x kan wuxuu leeyahay x marka waa maxay lambarka xarafka ugu exponent yar waa maxay labadooda kan x square way kan x way marka x tana ugu exponent yar kaligeed taagan oo exponentigeeda hal yahay marka saas marka substitute parenthesis la substaa marka waxa la subiyaa waxa la subiyaa 4x square ba waxa loo qaybiyaa 2x 4 u qaybi 2 4 2 loo qaybiyay waa 2 x square waxaad u qaybisaa x square loo qaybiyay x waa x sababtoo ah marka xarfaha isku qaybinayso waxa la subiyaa exponentiyadooda ayaa la kala jaraa marka 2 ka jarkan oo exponent hal leh waxa uu yeelanayaa halka uu qarsoon yahay laakiin hadda 2 waxaad u qaybisaa 2 waxa ku soo haraya hal ba ku soo haraya hal x waxaad u qaybisaa x waa ever marka geeskan saan baan u factor gareynay geeska kale waxaan fiirinaynaa 2 lambar oo waa maxay lambarada ugu weyn oo labadoodaba loo qaybin karo waa maxay lambarka ugu weyn ama greatest common factorka labadoodaba loo qaybin karo waa maxay lambarka ugu weyn oo lambar negative 10x loo qaybin karo iyo 5x na loo qaybin karo waa negative 5 weeye marka negative 5 baa dhiganaysaa lambarka ugu weyn oo labada loo qaybin karo waa negative 5 marka kan wuxuu leeyahay negative 10x negative 10 wuxuu leeyahay x negative 5 na x ma lahan marka x ta labadooda maadaama aysan lahayn oo x ma loo qaybin karo labadoodaba marka waxa la subiyaa hadda negative 10 waxaad u qaybisaa negative 5 negative 10 loo qaybiyay horta parenthesis baa la dhigtaa marka ugu horeysa parenthesis baa la dhigtaa marka dhigatid negative 10 waxaad u qaybisaa negative 5 negative 10 loo qaybiyo negative 5 waa positive 2 weeye waa positive 2x external soo qaata negative 5 u qaybi negative 1 negative 5 loo qaybiyo negative 1 waa positive 1 weeye marka saas u dhigatid
baan waxaan subinaynaa factoring by grouping hadda marka waxa la subiyaa labada lambar oo balaanka ka jooga parentheses-ka sida 2x iyo negative 5x oo ka jooga balaanka baad waxaad dhex gelinaysaa parentheses baa subsanaysaa labada lambar oo balaanka jooga 2x iyo negative 5 baad waxaad dhex gelinaysaa parentheses 2x iyo negative 5 baad waxaad dhex gelinaysaa parentheses haddana waxaad subinaysaa bal u fiirso labada lambar oo 2x plus 1 iyo 2x plus 1 waa laba isku mid ah marka waxa la subiyaa midkood baa la soo qaataa maadaama isku mid yihiin marka halkaas baa lagu qortaa 2x lagu daray 1 2x lagu daray 1 marka saas u qoratid hadda waad factor garaysay wuxuuna noqday final answer-kii wuxuu noqday ama jawaabtii ugu dambeysay wuxuu noqday 2x laga jaray 5 parentheses haddana 2x lagu daray 1 buu noqday marka waad factor garaysay sidaas ayuuna noqday jawaabtii hadda waan hubin karnaa inaan jawaabteeni sax helnay in kale ma hubinaa okay waa hubinaynaa marka ugu horeysa waxaan subinaynaa sida la iskugu dhufan jiray sida la iskugu dhufan jiray polynomials kan subinaynaa ama foiling marka 2x baan ku dhufanaynaa 2x ku dhufa 2x lagu dhuftay waxaan ka wadaa 2x ku dhufo 2x lagu dhuftay 2x waa 4x sababtoo ah waa 4x square sababtoo ah 2 markaad ku dhufatid 2 waa 4 x markaad ku dhufatid x-na waa x square laba xaraf markaad isku dhufanaysid exponent-yadooda ayaa la isku daraa marka kanoo exponent hal iyo kanoo exponent hal isku dar labuu noqonaya exponent-giisa hadda 2x waxaad ku dhufataa 1 2x lagu dhuftay 1 waa 2x way 2x waa 2x waa 2x sababtoo ah 2 markaad ku dhufatid 1 waa 2 external soo qaata maadaama kaas x lahayn x sida laskuma dhufanayo marka kan x ma lahan halka marka hata negative 5 waxaad ku dhufataa 2x negative 5 lagu dhuftay 2x waa negative 10x sababtoo ah negative 5 markaad ku dhufatid 2 waa negative 10 x tano midkooda soo qaadanaysa halkaas ba ku dhiganay maadaama negative 5 aysan lahayn x hadda negative 5 waxaad ku dhufataa negative 1 negative 5 lagu dhuftay negative 1 waa negative 5 marka saas u qoratid baad waxaad subinaysaa waad collect garaynaysaa like termska ama marka hadda labada like terms meesha ah waxa weeye waa 2x iyo negative 10x waa like terms marka waa collect garaynaynaa 4x square hadda 2x waxaad ka jartaa 10x 2x laga jaray 10x waa 8x waa negative 8x sababtoo ah 2 markaad ka jirtid 10 waa negative 8 x tana waa ka soo qaadanaysaa marka kanna wuxuu ahaa number negative 5 marka ma aragtaa hadda markaan check garaynay ama hubinay waxaan ku soo noqonay original problem keeni ayaan ku soo noqonay oo ahaa 4x square laga jaray 8x laga jaray 5 jawaabtana saas buu noqday qaybta labaad ee videogan ama cashirkan waxaan ku subin doonaa tusaale kale marka qaybtan halka ay ku dhamaatay qaybta labaad daawo qaybtan waxay ahayd qaybtii koowaad bay ahayd waxa daawataa videoga kale ku xiga oo ah qaybta labaad